milkiilaha Chelsea Todd Boehly ayaa cadaadis saaran maadaama Blues ay ku guuldareysteen inay ka faa'iideystaan tartan kasta. Waxaa taas ka sii daran in kooxda reer London ay ku dhowdahay in ay u laabato heerka labaad marka loo eego booska loogu soo baxayo Champions League iyo qeyladhaanta ka dhacaysa Stamford Bridge. Kooxda Chelsea ma aysan helin xasilooni tan iyo markii Roman Abramovich uu ka tagay kooxda. Milkiilaha cusub Todd Boehly ayaa wax ka bedelay qaab dhismeedka kooxda isagoo shaqada ka ceeriyay shakhsiyaad muhiim ah sida Marina Granovskaya oo agaasimihii hore ee naadiga iyo kaaliyaha sare xilligii Abramovich. Tan iyo markaas Boehly wuxuu udub dhaxad u ahaa maamulka kooxda ee hoos yimaada xukunkiisa. Si kastaba ha ahaatee, khibrad la'aantiisa kubadda cagta iyo go'aankiisa dhaqaale ee degdega ah ayaa Chelsea geliyay xaalad khatar ah. Ganacsadaha Mareykanka ah ayaa doortay in uu xaliyo dhibaatooyinka joogtada ah ee kooxda isaga oo ku daadiyay dad khabiiro ah oo ku takhasusay saxiixyada heshiisyada suuqa kala iibsiga. Chelsea ayaa suuqa January gelgishay iyada oo ku qarash gareysay lacag dhan 650 milyan oo euro. Enzo Fernandez, Mikhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto, Andre Santos, Dadro Fofana iyo Joe Felix. Labada heshiis ee rikoorka ah ee wareejinta ayaa wax yar ka caawiyay kooxda, gaar ahaan Potter iyo Blues waxay ku sii jireen miiska dhexe iyagoo lacagtooda oo dhan dul dhigay Champions League. Boehly waxa uu keensaday tababare gaar ahaan Potter oo uu ka bixiyay 20 milyan oo dollar, laakiin markii dambe waxa uu ku qarash gareeyay 60 milyan oo dollar si uu shaqada uga ceeriyo. Frank Lampard ayaa si degdeg ah loogu yeeray doorka tababarnimo toddobaadyo ka hor kulankooda Champions League ee ay la ciyaareen kooxda haysata horyaalka Real Madrid. Lampard ayaa noqday tababarihii lixaad ee Chelsea halgankii maamul ee Boehly. Real Madrid ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed kale oo heer sare ah Champions League waxaana ugu soo baxday semifinalka 4-0 celcelis ahaan. 2 gool oo uu dhaliyay Mr Champions oo ah Rodrigo ayaa meesha ka saaray rajada kaliya ee Chelsea oo filaysay xilli ciyaareed guul leh. Burburkii Chelsea ee Champions League ayaa ah meesha ugu sareysay ee dhibaatada, taasoo muujinaysa xaaladaha adag ee ay kooxdu ku jirto. Xilli ciyaareedka Blues 2023 wuxuu ahaa jaawareer. Kooxda ayaa gaartay kaliya hal guul 12 kulan oo ay ciyaareen tartamada oo dhan. 3 guul daro oo xiriir ah iyo 6 kulan oo aan wax guul ah laga gaarin Premier League ayaa ka dhigaysa in Blues ay ku sii jirto kaalinta 11aad. Tani waxay u tahay naadiga kaalin xun, waliba waxay khatar ku tahay ammaankooda dhaqaale. Mid ka mid ah tirikoobyada ayaa muujinaya liidashadooda tartan. Chelsea ma aysan garaacin hal koox oo ka mid ah 6 kooxood ee ugu waaweyn Premier League ee la yiraahdo Big Six xilli ciyaareedkan, waxaana ay guul la'aan tahay 12 kulan. Blues waxa ay u muuqdaan kuwo aan lahayn weeraryahano, haddana kooxdoodu waxay haysataa qaar ka mid ah xidigaha kubadda cagta ugu tayada iyo rajagelinta badan 10 sano ee la soo dhaafay. Waa yaab waxba qaldan. Habab iyo farsamooyin kala duwan ayay adeegsadeen tababarayaasha Chelsea, laakiin midna ma suurta gelin. Qaababka weerarka sida 4-2-3-1, 3-4-3 iyo 4-3-3 ayaa si fiican ugu shaqeeyay in kubadda xagga weerarka la xoojiyo, laakiin waxay sidoo kale soo bandhigeen daciifnimada difaaca kooxda. Hadda Lampard oo mar kale macallin u ah waa inuu ogaadaa inuusan si fiican ula shaqeyn kooxda. Chelsea waa inay wajahdo xaqiiqda oo ay fahmaan sida ay u maareynayaan saxiixyadooda cusub. Difaaca nugul ee kooxda Boehly waxaa loo baahan yahay inuu xoojiyo dhabarka. Kooxda ayaa hadda la filayaa in ay qaadato deyn dhan 1.1 bilyan oo dollar, waxaana laga yaabaa inay wajahdo suurtagalnimada dib u dhac dhaqaale oo dheeri ah haddii ay ku guuldareystaan in ay u soo baxaan Champions League. Kala doorashooyinka Todd Boehly way xadidan yihiin kadib suuqi kala iibsiga ciyaartoyda ee dhawaa. Marka kacdoonka waxaa loo baahan yahay inuu ka yimaado gudaha garoonka kubadda cagta.